allaha u naxariistay Dr. Cali Khaliif Galeyd oo ahaa siyaasi Soomaalida dhexdeeda caan ka ah ayaa waxa uu ku dhashay 1941 magaalada Laascaanood waxaana tacliintiisa hoose uu ku soo qaatay isla magaalada Laascaanood halka tacliintii dhexe iyo tii sarena uu ku qaatay dugsiga Sheekh markaasi kadib oo waxbarashadiisa sare uu ku soo qaatay waddanka Mareykanka gaar ahaan jaamacadda loo yaqaan Boston University oo 1965 uu ka qaatay shahaadada loo yaqaan MA sidoo kale waxa uu isla shahaadadaasi ka qaatay jaamacadda loo yaqaan Syracuse University ee ku taala magaalada New York 1969 isla jaamacaddaasi Syracuse University ee ku taala magaalada New York ayaa uu ka qaatay shahaadada loo yaqaan PhD 1972 Dr. Cali Khaliif markaasi kadib waxa uu dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliya markaas oo uu qabtay shaqooyinkiisii ugu horeeyay oo ay ka mid ahayd xafiiska siyaasadda oo uu qaabilsanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo madax uu ka noqday degmada Afgooye markii dambe 1970 ilaa 73 ayaa uu macadka tababarrada loo yaqaan Siiba waxa uu ka qabtay shaqada loo yaqaan waaxda tababarka markii dambena agaasimo guud ayaa uu ka noqday isla macadkaasi Siiba dhanka kale waxa uu madax ka noqday Dr. Cali Khaliif mashaariicdii dhanka warshadaha ee warshadii sonkorta ee loo yaqaan Isnaay ee ku taala magaalada Jowhar oo uu ka noqday barnaamijkaasi madaxa fulinta 1980 ilaa 1982 ayaa uu noqday wasiirka wasaaradda warshadaha ee xukuumaddii kacaanka uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre Dr. Cali Khaliif Galeyd allaha u naxariistay 1982 ilaa 1984 ayaa uu shaqooyin ka qabtay waaxda amuuraha dibadda jaamacadda loo yaqaan Harvard iyo sidoo kale jaamacadda loo yaqaan Cambridge sidoo kale waxa uu la taliyo u noqday hay'adda loo yaqaan USAID iyo sidoo kale jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waaxda u qaabilsan horumarka Dr. Cali Khaliif Galeyd sidoo kale waxa uu wax ka dhigay jaamacadaha ku yaala waddanka Mareykanka qaarkood oo ay ka mid tahay jaamacadaha Maxwell, Syracuse iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala magaalada New York qaarkood Dr. Cali Khaliif Galeyd allaha u naxariistay waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 bishii Oktoobar 8 isagoo ka mid ahaa siyaasiyiintii ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee carta lagu qabtay waddanka Djibouti iyadoo markaasi uu la shaqeeyay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan hase ahaatee xilkaasi waxa uu ka degay 2001 bishii Oktoobar waxaana uu dib ugu laabtay jaamacadaha waddanka Mareykanka gaar ahaan midda ku taala Minnesota oo uu wax ka dhigay 2002 ilaa 2006 intaasi kadibna waxa uu dib ugu soo laabtay deegaanada Sool iyo Sanaag halkaas oo deegaanka Saaxdheer loogu doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo halkaasi dhaqdhaqaaq ka waday tan iyo bishii Oktoobar ee 2017 markaas oo uu la galay heshiis rasmi ah oo siyaasadeed xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo heshiiskaasi oo ka dhacay magaalada Caynaba sidaas ayaanu Dr. Cali Khaliif ku qaatay siyaasadda Somaliland oo ay isku fahmeen in la sameeyo saami qaybsi dhab ah iyadoo dib loo eegayo shuruucda ay ku dhisan tahay Somaliland Dr. Cali Khaliif wixii markaasi ka dambeeyay waxa inta badan uu ku sugnaa magaalada Hargeysa ha yeeshee dhowr usbuuc ka hor ayaa uu u socdaalay dhinaca magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya halkaas oo isagoo xanuun hore aan qabin uu si kadisa ugu geeriyooday maanta oo bishu ay tahay Oktoobar 8 2020 Cabdishakuur Dayib Maxamed